qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Jaamalaaye ee magaalada Berbera ayaa cabasho ka muujiyay warshad xoolaha lagu qali doono oo dhismaheedu haatan ka socdo meel u dhow xaafadaasi Jaamalaaye. Dadkani oo telefishinka caalamiga ee Somali News TV wax ka weydiiyay cabashadoodani waxa ay daaran tahay ayaa sheegay inay ka cadhaysan yihiin warshad uu leeyahay waa sida ay hadalka u dhigeen safiirka Imaaraadka u qaabilsan Somaliland Baashe Cawil Cumar oo shaqaalihii dhisayay warshadaasi dalka dibadiisa ka keenay waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Bismillahir Rahmaanir Rahiim halkan waxa laga dhisayaa sariibad baa la yiri ariga qashcadeynaysa oo ay wataan niman arcado laga keenay dibadda. nimankaas waxay leeyihiin kuuligii wastaadkii qaldawalihii nijaarkii ninkii marmarka dhigayay ninkii jaajuurka goriyo inta waa leeyihiin intanna waxa ka shaqayn jiray dad muwaadiniin oo aan dakal u shaqo tagin oo dawlad hoose ka shaqayn oo askar ahayn oo shicib Ilaahay baa ku noolaayo laga shaqaysiin jiray markii aanu maayirka iyo barsaabka iyo xoghayaha iyo waxba u yeerneen waxay nagu yaadeen annaga tan way naga madax banaan tahay Baashe nin la yaahdo dawladda dhexe oo madaxweynuhu uu sadagu yahay ayaa wata marka waxba kama qaban karey waanu diin bariye tageynaa baan yahdeen suga isla alaanka wixii ay nagu ballan qaadeen waxba aan ka qabanaynaa way diin imaanayna warka soo xulinayna waa sidii oo waxba laga ma qaban barakaatu arintan laga hadlayo ee shirkadda halkan laga dhisayo marka hore sida xaqiiqadu ay tahay ma aha in dad shisheeya oo meel kale ka yimid dal kale laga soo qaaday ay ka shaqeeyaan waxay hay tolay wadanka iyadoo dhalinyaradii ay wada bilaa amal tahay oo maalin kasta taariibayso dhalinyaradii badaha ku daadanayso oo halka waxa geynaya waxa weeyaan wadadka meesha kale laga soo rarayo ee shilinka hoos u dhigaya dadkii maxay hay tolay siinaya waxay hay tolay dadka dhalinyaradu waxay arkaysaa miciishadu maanta halkay marayso wada aragtaa waxay hay tolay irkaasay ku shareeranta halka waxa laga dhishayaa warshad waxay hay tolay dhalinyaradii xaafadda iyo reer Berbera iyo reer Somaliland shaqaale waa looga diiday why not marka maxay soo wadaa shirkad marka maxay soo wadaa warshadu hadhow tolana waxa ka shaqeynaya waa dadkan wadadii dadna way ku tacadiday oo qaar bay marisay safeynka qaarna ma marin wadadii ay qalloocay iyadoo waliba halka ummadan oo ka shaqeyn lahayd waxa la dhisayo aan cid alaal cid shaqaale laga darin oo carab la keenay iyadoo waxba loo ogolayn xaafadda iyo Oromo waxa naga nasiib roonaaday maanta shisheeya nooga meel kale laga keenay waxa Yemen baa laga keenay dadka doon baa lagu soo guray ilaa kuuligii ilaa wastaadkii iyaga wata waxa weeyaan ummadda oo dhan waxa laale wixii ay ka shaqeyn lahayd afar qof baa looga ogolaaday shaqaale ka shaqeeyo xaafadda oo reer Berbera Somaliland afar qof baa taraaxa marka waxaan daliilaynaa xukuumadda soo go'aamisay waxyaabaha noocaas ee dhalaanta noocaas ku socota ayaanu daliilaynaa aad iyo aad baan uga xunnahay eedaanu nahay xaafadda ka codsala xukuumadda inay naga saarto dadkan shaqooyinkii lagu haystay meel kasta ee duluqda ayaa wadankana ee u balan degdegadeena looga saaro ajnabiga inta waxaan ka qabaa taas waa run waxaan ka qabaa waa run Soomaad garan dadka dawladda laga keenay dadkii wadanka u dhashay saylada joogay ee xaafadaha joogay baa bilaa amal dhalinyaradii baa amalaan la tuban taas dawladdu way ku khaldantay dawladdu khalad bay ku gashay taas wax laga weydiiyay taa ku khaldantay dawladdu waa dareen lagu yaqaan dadweynaha reer Berbera sida aad hore soo sheegteen mashruucan runtii ahmiyad weyn ayuu leeyahay deegaanka Berbera waa mashruuc runtii shaqo abuur u abuuraya dhalinyarada waa mashruuc runtii kordhinaya wax soo saarkeena oo kabaya xoolihii noolaa aynu hore u dhoofin jirnay marka farxad weyn bay runtii noo tahay dhammaantayo inaan maanta nimaadno Berbera oo mashruucani nasiib u heshay mashruucani runtii wuxuu noqday mashruucii labaad ee bil gudaheeda dawladda Imaaraadku ka fuliso dalka waxaanu noqonayaa masnaqa xoolaha lagu qalo cabashadani ka timid dadka ku dhaqan xaafadani Jaamalaaye ayaa imaanaysa muddo yar ka hor xilli uu dhagax dhigay safiirka Imaaraadka u qaabilsan Somaliland Baashe Cawil Cumar taasi oo uu sheegay inay warshadani ay soo saari doonto hilib loo dhoofiyo dalka dibadiisa. Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Berbera.